dowladda Mareykanka ayaa mar kale war cusub ka soo saartay xiisadda u dhaxaysa dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya ee ka dhalatay heshiiskii badda ee horaantii sanadkan dhex maray Somaliland iyo Itoobiya. safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Richard Riley ayaa sheegay inay ka go'an tahay in xal nabadeed lagu dhameeyo khilaafka Soomaaliya iyo Itoobiya. sidoo kale wuxuu tilmaamay in Mareykanku uusan marnaba aqoonsanayn heshiiskaas kaasoo xiisad ka dhex abuuray Soomaaliya iyo Itoobiya. wuxuu kale intaa ku daray in nasiib darro ay tahay in Itoobiya ay weli ku sii dheganaato heshiiskan oo uu tilmaamay inuu carqalad ka abuurayo Geeska Afrika. safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Richard oo arrintan ka hadlaya waxa uu yidhi, aad ayaan uga warqabnaa oo si wada jir ah ayaan uga wada shaqaynaa si aan u hubinno in xal diblomaasiyadeed laga gaaro xaaladda hadda jirta. waa xaalad nasiib darro ah, qas badan oo ka bilowday is-afgaradkii Somaliland iyo Itoobiya. dabcan ma aqoonsanin. waxaan isku dayaynaa inaanu ku xalinno dariiq diblomaasiyadeed. Mareykanka ayaa horey u diiday heshiiskii Itoobiya ay la gashay Somaliland isagoo taageero u muujiyay madax bannaanida dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya.